kulankan geeki oo sokooyan xubno galo wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya may balleen ku hadalay arrimo dhowr ah oo kumid ahaayeen sugowka ammaanka gobolada ku aramiya maamulka email marinta hindisa sharciyeedka hanta dhowrka oo yahay gudbidii wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda kulanka may bashir gudoomiyahay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan may banoocod aqlabiyada ee la kameel mariyay hindisa sharciyeedka hanta dhowrka wasiirka wasaaradda arrimo gudaha dawladaha hoose ee dib u heshiisiinta maxamed abuukar iyo kulanka kureed saxaafadan ku warbi walyaabo leen ku hadalay kulanka galo wasiirada oo may la raay khamiise taariikhda tumilita bil shanaad 2019 way baqabsoomay shirki golaha wasiirada oo may la raay khamiis lahay shirka way ka furmay sida adiga hay may la raay wayna shir gudoomiyahay wasiirka garsoorka iyo cadaaladda shir gudoomiyahay shirkaas may lan ku haray qodobada caadiga lan ku hadalay kuma tahay tiimay la raay amniga wayba warbixin biyay wasaaradda amniga oo ku hadalay qorshihii amniga magaalada Baydhabo maadaama la ka jiray sidiisan wada ogdin bil Ramadan oo may leeyahay amni daradana magaalada iyo xeeraha magaalada inta badan eedan badanyin qorshe wasaaradda amniga may diyaarday qorshe la ka sugo amniga magaalada Baydhabo iyo xeeraha magaalada markan taas oo hayti may leeyahay ani si oo dadka muslimiinta may leeyahay si nabadeenka Soomaan dhibaatooyin ku dhina magaalada dadka si oo may leeyahay ugu geekan Soomaan hatana dhibaatooyin ka dhina taas daraadii magaalada wayba may leeyahay qorshe amniye la sameey taas oo rajay doon insha Allah bulshadana lagu qoodsaday in may leeyahay kula shaqeyn barnaamijkan si furulahay maadaama uu ku saabsan yahay may leeyahay sidii nabadgelyo hela fadi markan ciidamo gaar ah la sameey magaalada amniga si goonaan sugu doona ilaa magaalada may leeyahay si hata wallahi hantuuri magaalada handeerna in ciidamo meelihi wallahi ku geemi jiray hubiyalka la kordhi jiray ciidamo gaar ah la sameey rugo goonay la sameey ciidanka la kordhi baaritaano badan la sameey doona amniga insha Allah taala ramadaankan magaalada Baydhabo maadaama caasimadii ku meel gaarka koonfur galbeed sugu doona taas ma leeyahay wasaaradda amniga gudbidi ajendaha lamaado ee muhiimka ah way ku mid tahay ansixintii hindisa sharciyeedkii oo hanti dhowrka koonfur galbeed kaas oo sunu muhiim ah in la helo muddo in waqti ma leeyahay muddo meeliyali taas way ba muhiimad gaar ah in la leeyahay golaha wasiirada oo aqlabiyada ka ansixin dhamaantiyo oo taasna way ba insha Allah taala suurtagali doonta sharci muhiim ah koonfur galbeed golaha wasiirada aan baas mariyaan rajay doon insha Allah labanadan in saas oo kala ma leeyahay walbadan ku gobol doonaan oo yoon ansixi doonaan toddobaad walba geek oo kale iyo xubno galo wasiirada koonfur galbeed ma bayoona sokooyana kulankan oo kale oo leen ku hadalaa xaalad walba oo markaas ay ku tagan koonfur galbeed Soomaaliya